shirku maanta wuxuu ahaa shir dheer oo lagaga wada hadlay arrimo fara badan oo muhiim ah. waxa ugu waaweynaa qodobada shirka galabta la iskula soo qaaday. waxa warbixin dheer soo jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka warbixiyay safaradiisii dheeraa oo ku soo galay isteediyada Puntland iyo Galmudug. safaradaas oo ahaa safaro uu ugu gogol xaariyay doorashooyinka soo socda, kuna qiimeynayay xaaladda isteedka iyo isteediyada uu booqday, kula kulmayay qaybaha bulshada. warbixinta wuxuu kaloo kaga warramay dhacdadii argagaxa badnayd ee ka dhacday garoonka Cabdilaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo. dhacdadaas aynu ku weynay saraakiil iyo dad wadaniyiin ah oo aad inoogu qaali ahaa. ilaahay u naxariisto, tacsina waa loo sii gudbiyey golaha wasiirada. warbixinta ra'iisul wasaaraha kadib waxaa warbixin isaguna shirka golaha wasiirada u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo ka warramay shirkii uu tegay dalka Belgium European Unionka xaruntooda Brussels. shirkaas oo uu kala soo hadlayay arrimaha deeq bixiyayaasha kala hadlayay European Unionka, arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo si ambaqaadka kaalmooyinka European Union ku bixiyaan oo si habsamiya u socda. kulankaas oo uu ku tilmaamay wasiirka arrimaha dibadda kulan midhadhal ah iyo safar guul ah. wuxuu kaloo wasiirka arrimaha dibadda ka warbixiyay shirkii Djibouti ee madaxda IGAD ay isugu yimaadeen, madaxweynayaasha iyo prime ministerada wadamada IGAD, halkaasoo lagaga wada hadlayay arrinta Soomaaliya iyo Kenya. meel fiicanna la isla dhigay sidii warbixintiisii horeba markii uu soo laabtay ku sheegay. howluhuna ay halkaa ka sii socon doonaan. IGADna ay qaadatay door muhiim ah oo ku saabsan dhexdhexaadinta wadamada member stateska la yiraahdo xubnaha ka ah khilaafaadka soo dhaxgala inaanu u gudbin qaramada midoobay iyo African Unionka iyo Afrika ee uu gudahooda iyo gobol ahaan ay xaliyaan. arrintaas oo golaha wasiiraduna ay ku ammaaneen wadamada IGAD. waxa kaloo arrinta shirka golaha wasiirada ee maanta oo aad u dheeraa sidaan horeba u sheegay lagaga wada hadlay amniga qaranka, xuduudaha, wasaaradda difaaca, gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Xaaji ayaa ka warbixiyay. wuxuu carabka ku dhuftay oo taabtay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay heegan u yihiin sugista amniga xilliga doorashooyinka. wuxuu kaloo ka hadlay xuduudaha, gaar ahaan jabhaddii laga soo abaabulayay Kenya oo uu sheegay inay ciidamada xoogga dalku si fiican ay isu diyaariyeen, xuduudihiina ay sugayaan, wax shidaahina aanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrintooda ay aad u wanaagsan tahay, dalkooda iyo dadkoodana inay difaacaan ay diyaar u yihiin. arrintaasuu ka warbixiyey. waxaa kaloo lagaga wada hadlay oo ay wasaaradda amnigu soo bandhigtay iyadoo ay ka qayb qaateen shirka taliyayaasha amniga in amniga doorashooyinka. waxay sheegeen inay diyaariyeen qorshihii amniga doorashooyinka. wasaaradda amniga iyo taliyayaashooduna waxay golaha warbixin ka siiyeen qorshaha ay ugu talagaleen amniga doorashooyinka. shirku wuxuu ansixiyey siyaasado iyo xeerar muhiim ah. waxaa lagu ansixiyey axdiga caalamiga ah ee xaqa iyo xuquuqda shaqaalaha, international covenantska ku saabsan labor rightska ayaa lagu ansixiyey. waxaa kaloo lagu ansixiyey siyaasadda fayadhowrka biyaha. intaasaa maanta ka dhacday shirka golaha wasiirada oo runtii ahaa shir aad loogu lafaguray siyaasadda iyo howlaha doorashooyinka, amniga iyo xaaladda guud ee dalka.